بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عشر كان مانتو حكب اللابنا يا آيات بقول أفرتن يلبات سورة البقرة كمد مناسبتها آيادا كساب سنتهينا وحيتهي nimanka la yiraahdo yahuuda iyo nasaarada yaa waxay sheegeen nabi ibraahim inuu ayaga kamid ahaa oo jidkiisi ay haayaan yaani qiblada uu tukan jiray nabi ibraahimna inay ahayd baytul maqdis sidaas markay sheegeen isla markaasna la og yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu baytul maqdis xageeda u tukan jiray muddo kadibna la faray nabiga inuu u soo jeesto xagga kacbada markuu soo jeestay ayay yahuudu waxay ka dhigteen arintaas dacaayad ay ku faafiyaan ka hor imaanshaha diinta ay ka hor imaanayaan ayagoo marmarsiinyo ka dhiganaya jeesashadaas yaani nabiga sallallahu alayhi wasallam yaani uu jeestay xagga kacbada oo baytul maqdis uu ka soo jeestay waxayna yiraahdeen maxamed wuxuu u xiisooday meeshii uu ku dhashay ee maka ah saasuna ugu jeestay xagga maka mar hadii marka meeshii uu ku dhashay basaan uu jeclaaday xaggeeda uu soo jeestay mar dhowna intuu ka sii gudbo ayuu qoomkii uu ka yimid ee quraysh ahaa ee mushrikiinta ahaa diintoodii ayuu dib ugu laaban doonaa sidaas markay yiraahdeen ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa loogu sheegay dadkaas yahuuda ah kuwooda maangaabka oo waxba garanaynin in ay sameyn doonaan arin dacaayad ah oo qiblada markii loo soo jeesto oo taxawiil yaani qibla oo dhaco qiblada la soo wareejiyo oo baytul maqdis laga soo jeesto in ay aad iyo dacaayad uga faafin doonaan arintaasna wali ma ina dhicino يعني وإيمان دونتا ولي لما وريجين لكن أرين إيمان دونتا هذه الله سيشة وحكي تسيس القرآن كان إنه وحي من الله وياهي سيدي أيين نقطة مركي أرنتي أيد على يهود سيدي القرآن كوسيشة يقول رقمين مركي هذا الذي أيكون هذا مركي قبل هذا لو وريجي أي أيدهن أي كسابسين إلهي وحوله سيقول السفهاء وسيقول وحيده دونان السفهاء وكوا وحمجرت كأ ومن الناس دتك كمد ويهودي يعني أو دعاية فافين يسيه waxay dhihi doonaan ma wallahum maxaa ka jeediyay aan qiblatihim qibladooda maxaa ka jeediyay allati taasoo kaanu ay ahaayeen caliha korkeeda yaani dadka maangaabka waxay dhihi doonaan markay muuminiintu ay u jeestaan xagga kacbada ay u jeestaan oo baytul maqdis ay ka soo jeestaan waxay dacaayad ka dhigi doonaan oo dhihi doonaan maxaa u jeediyay xaggaas qiblayba u sii jeedeen oo baytul maqdis la yiraahdo oo nabiyadii horena qibla u ahayd ayayba u sii jeedeen كوريجشدان هذا أي كوريجتين محيطها أي ده دونان سيقولوا وحيده دونان السفهاء كوا مانجابك أو من الناس تذكر كمدة ما والله محاكجي ذي مسلمين ته عن قبلتهم قبلة ذي محاكجي ذي أو بيت المقدس التي كانوا عليها تاس أو كركذا أي أحيان محاكجي ذي أي ده دونان قولوا حد كتر هذا مركز الساس ها النبي وحد كتر هذا لله إلهي يا إسكال المشرق قرح كصباح والمغرب قرح ودع يعني جهوينك إلهي يا إسكاله ماشي لو جيستنا أصي أمر كيسا يا لو جيستا مركب ميل دادك يعني أي كل جنانا ين أيها هودون أي كرع عين مجرته وحد كتر هذا بري يقرح ودعب إلهي بقى إسكاله يهدي وهنون من يشاء قفه دونه إلى صراط جد أيوكو هنون المستقيم أو توصن يعني جهوينك لو جيستنا أيو وأن إلهي أمر كيسا هذا ماشي أفر إن لو جيستو هنون كان إلهي بقى إسكاله يهودا marka aan rasuul bar rumaysneen oo quraankan soo degay diidan inay wax xaq ku taagan iska dhigaan oo ay marmarsiyo ka dhigaan oo ilayhin annaga xaq ku taagan oo maxay baytul maqdis ay wali anagu u sii jeedna yaani jeesashada ay muslimiintu ka soo jeesteena wadankooda ay u xiisaysan yihiin oo xaq kuma taagno arrinku sidaas ma aha hadii la isu jeedin bari iyo hadii galbeed la isu jeedin ba amar ilaahay ba arrintu ay ku socotaa hanuunkana sida idinku idin la tahay oo hawadiin arrinku ma aha ilaahay ayaa cid uu doono hanuun wanaagsan siiyo oo wadada saxda ayuu ku hagaajiyaa wakadalika sidaas ayaan jacalnaakum idin ka dhignay ummatan ummad oo wasadan dhexdhexaad ah yani ummad akhyaar ah oo cadaalad ayaan idin ka dhignay ummadan hadaad tihiin wasad waxaynu ku nahay yani ayaga inxiraafaadka iyo xadgudubka ku dhacay innagana looma ogolo oo inaan ku xadgudubno diinteena lama ogolo inaan diin la'aan noqono oo baadiyowno oo aan diin la'aan noqonana ayadana lama ogolo yani marka inaan yani hoosna loo dhicin korna loo xadgudbin si dhaxdhaxaad ah oo yani ummadan sidii xaq ahayd ee diinta saxda ahayd in macna aan sidaas ilaahay naga dhigay ayaan ilaahay uga mahadinaynaa
saasana waxa la idin ka dhigay si ilaahay islaamku idin ku hanuuniyay ayaa wuxuu idin ka dhigay diintiinu diin wasat kaasa marka wakadalika sidaas ayaan jacalnaakum waxaan idin ka dhignay ummatan ummad wasadan oo dhexdhexaad ah litakunu si aad u ahaataan shuhadaa markhaati cala annaasi dadka korkooda saad ugu markhaati furtaan yani ummad wasad oo xaqa ku taagan ayaa tihiin si yani ummadaha kale aad u garsoortaan oo markay xadgudbaan aad u tiraadaan war joojiya xadgudubka litakunu si aad u ahaataan shuhadaa cala annaas marka dadka oo shuhadaa noqonaya sideedaba qofka markuu markhaati furaayo muwaasafaad laga raba ayaa jirta oo ay ka mid tahay qofku inuu qof istiqaamo leh inuu yahay qof faasiq ah oo ilaahay daacadiisa ka baxay markhaatigiisa lama qaato yani faasiq markhaatigiisu laana been ayuu sheegaya ilaahay kama cabsanayo marka qofka markhaatiga galaya waa qof fiican inuu yahay marka ummatul maxamed waxaa laga rabaa inay noqoto ummad wanaagsan oo yani ummadihii ku markhaati furta laakiin adoo ummatul maxamed ka tirsan haddii haddana daacada ilaahay garab marto yani baashi yani markhaatinimadkii aad gudan lahayd si aad ku gudato male maxaa sifadii lagu gudan lahaa oo istiqaamada haddii lagaa waayo marka ummadaani waxay tahay ummad dhexdhexaad ah oo xaqa ku toosan saasuun ilaahay idinka dhigay litakunu si aad u ahaataan shuhadaa markhaati cala annaasi dadka korkooda si aad markhaati uga noqotaan wayakuuna arasuulu rasuulkuna uu noqdo calaykum korkiina shahiidan markhaati inuu idinku noqdo yani idinkana rasuulka idinku markhaati furi idinkana ummadihii kale ayaad ku markhaati furaysaan marka waa in mustawahaas laisu diyaariyo waxa wax aad looga xumaadaa ummad la rabay mustawahaas inay yeelato oo yani caalamka oo dhan ay dhexdhexaadiso oo ay markhaati ka noqoto oo kii gardaran ay tiraahdo waad gar daran tahay joog kii garle ay tiraahdo asaga gar leho waxa weye cadaaladdu waa sidaas oo marjiciye ayaga loola soo laabto oo la weydiiyo oo la yidhaahdo muslimiintu ra'yigooda bal weydiiyo oo arrinku suu yahay oo caalamka oo dhan inaan hogaaminada laga rabay ayaa hadda macal asaf waxay noqotay muslimiintii ayaga in la kala celiyo caalamkii kale inuu iska dhigo yani wax asaga uu yani ka fiican yahayo waxa uu kala celin inuu yani ayagii uu noqdo marka mustawihiina laga rabay hoos ayaan uga dhacsannahay innaga waxay ahayd intaan isku toosno innaga dhexdeena muslimiin haddaan nahay oo dhan walba aan ka dhisanno oo dad yani hoggaan u qalma aan noqono ummadaha kale ee cawaanta ee diimaha aan haysanin ee yani dhunsani inaan ku markhaati furno oo dhahno waryaa jooga waad khaldan tihiin yani sidaas in la yeelo oo caalamka wixii ka dhacay axdaafta ka dhacaysaay ra'yigeena inuu ka socdo oo la yidhaahdo markay samaynayaan ra'yi war intaynan ra'yigaan ku dhaqaaqin bal ra'yiga muslimiinta aan ogaano yani laynagu xisaabtamo sidaas ayay ahayd saasaana rabaa in aan zacaamadaas ay noqoto ummadaha saasaad markhaati ugu tiinaa layidhi laakiin haddii ay halkaas la gaari waayo oo sidii carruurtii yani inaga dhexdeenna aan isku noqnoqono oo inaga isla dagaalno oo dhexdeenna ay noqoto oo waxa la kala celcelinayaba muslimiin ay noqdaan waa wax laga xumaado waayo yani meeshin ilaahay uu inaga rabay inaan istaagno ama aan gaarno yani inaan aad uga hooseyno ayay ku tusaysaa bal meeshan ilaahay uu sharafta inagu siinaayay ummadan sida ilaahay uu ka rabay bal si ay u dhaqmaayaan aduba isu fiiri ilaahay wuxuu leeyahay sidaas waxaan idinka dhignay ummad dhexdhexaad ah waxaana saas la idinka dhigay litakunu inaad noqotaan shuhadaa markhaati cala annaasi dadka oo dhan يعني على المسلمين فقط ما يعني مسلمين تيجي مرخاتي اسكو دخ فريسان ورهبل واديغا واساس وهبل واساس انكم وان اهاتان شهداء على الناس adduunka oo dhan inaad markhaati ku furtaan oo kala celisaan oo kii gardaran aad tirahdaan uu gardaran yahay anaga markhaati ka inuu gardaran yahay saas ayaa idinka rabaa litakuunu shuhadaa cala annaas markaad saas yeeshaan oo daacadaas iyo ikhlaaskaas iyo cadaaladaas caalamka aad ku hogaamisaan wayakuuna arasuulu calaykum shahiidan rasuulkuna uu markhaati idinka sii noqdo oo ummadiisii ayaa tihiin inaad istiqaamo la imaateen inuu idinku qiro ayaa la rabaa marka si nabiga yani wax fiican aan ula hortagno yaa waxaa la rabaa inaan mustawa isu diyaarino si yani markhaatinimadka يعني nabigu inagu markhaati furaayo ay u noqoto sidii la isku ogaa dad wanaagsan oo fiican hadday saas noqon weydo waxaa iman doona maanta qiyaamaha dad raba inay darka nabiga ama xawdka nabiga ka cabaan markaas waxaa loo qabanaya dhanka bidixda loo eriyaaya sidii xoolo ceel intii lagu soo deeyay hadana dadku ay u diideen oo afka lagu dhuftay oo gadaal loo didiyay ayaa dad qaar kamida ummadan ayaa dib loo celinaya markay uu nabigu yiraahdo sallallahu alayhi wasallam ummati ilaahay ummadeeday kamid yihiin kuwan maxaa dib loogu celiyay darkayga may ka cabaan waxa leeyahay wixii gadaasha ay soo sameeyeen ma ogide iska dhaaf ayaa leeyahay intii aad ka soo maqnayd wax badaan oo isbedel ah ayay sameeyeen diintii ayay ka baxeen yani waxa way waxyaabo ziyaado ay ku soo dareen aad ayay u qalloocdeen marka si ayna saa inoogu dhicin waxaan rabaa inaan nabiga sallallahu alayhi wasallam talaabooyinkiisa raacno inaan wax barano inaan jid fiican aan qaadno si ummadaha kalena aan markhaati ugu noqono intaan adduunka joogno yani rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadhow aakhiro u markhaati inoogu noqdo oo dadkay way fiicnaan oo inoo yiraahdo oo halkaas aynan ugu ceeboobin sidaas in la isugu diyaar ayaa la rabaa wama ja'alna alqiblata allati kunta alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasul yani waxa jirtay kacbada dhowr iyo toban yani bilood ilaa 17 bilood ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam baytul maqdis u sii jeeday
ولا جسوا ورجيه يعني إن مركب بيت المقدس مركب هو أتوكل يجري حدنا لجسوا عليه حكمة كجرتي تحويل كاس مرنا حاجة اللي وجود جدي حدنا لجسوا عليه حكمة كجرتي أي إلهي آية كنت الماء إلهي وحوله وما جعلنا معنا يلين القبلة قبلة دي التي قبلة دي كنت أضهد عليها كركذا بيت المقدس كي أدوتو كنجرتي دوري طبعا كبلاد إن أدوتو كتكما أن يلين أو أدوتو كذاس كما أن لهم وحنكون أو كلئة إلا لنعلم إن أن أجانو علم الظهور أيال هذا أو أنوى بن أجن هاي أيدتك أجادان أم جنو من يتبع الرسول قفك رسول كراعي ممن مدحجي أن كم جنو ينقلب قدومي على عقبيه عربتيسة يعني واختبار يا امتحان يعني إلهي سبحانه وتعالى dadku wuxuu ku imtixaamaya amarkiisa u qaadanayaan dadka qaar waxa jira marka amarka la siiyay hadii uu waafaqsan yahay hawadooda oo wax ay jecel yihiin hadii la amro ayadoo ayna yaani diintii ku dadaalkeeda ka ahayn laakiin nafsadiisa uu raali gelinayo ayuu wixii sameeynaya markaas wuxuu iska dhigay wax diintii ilaaliyay diin muusan ilaalinine nafsadiisa jacayl ay qabto ayuu arinta u sameeyay inay saasa waxa ku tusaysaa hadii amar la siiyo oo la yiraahdo waxaas ka soo noqo shalay waa lagu amray saas ayaa loo sameey lagu yiri laakiin amar kale ayaa hadda yimid oo ilaahay uu ku amraayay saas ha yeelina si kala yeel dadka qaar kamid waxay dhahaan ma yeelayno oo maxaa dhacdo yeelay laadihin ma saas loo yeelay yani marka tadayunka waxay ka dhigayaan wixii hawadooda waafaqsan oo naftooda si ay jeceshahay yani waafaqsan oo diinta kamid ahna waayaha ay leeyihiin wixii aan waafaqsanayn oo markaas culays uu ugu jirana yani waxay leeyihiin anaga kuma jirno saas marka tadayun ma tadayun waxa la yiraahdaa qofku inuu mar walba diyaar u ahaado wixii la amro ama naftiisa markaas raali ha ku noqoto ama aysan ku noqonina amar ilaahay mar haduu yahay in la raacayaa la rabaa marka yani hadda in kacba la isu wareejiyay oo marka hore kacba loo tukan jiray oo haddana kacbadii la iska soo wareejiyay dadkii way imtixaameeno waa la kala baxay waxaana loo kala baxay kuwa amarka ilaahay qaadan oo shalay meeshii loo sii jeedin ilaahay baa u sii jeediyay xagaas u tukada markii la u tukanayay iyo kuwa meeshooda ku haraayo oo markii la soo gadooma aan soo gadoomayno dhahay ma anaga sidii horena lagu ogaa baan si ahaanayna marka imtixaankaas ayaa lagu jiray waxa cadaatay marka qofkii diintu ay run ka tahay oo amarka ilaahay meel alla meeshii loo diro yeelay iyo ruuxi amarka ilaahay aan yeelaynin ee on ka yeelaya hadba naftiisu waxa ay waafaqsan tahay marka ilaahay wuxuu ma jacalna kama aanan dhigin alqiblata qibladii waa baytul maqdis oo markii hore loo tukanayay allati taasoo kunta ahayd calayha korkeeda ahayd u tukan jirtay qibladaas markii hore kuma aanan jeedinin oo u tuka kuma aanan dhihin haddana kama aanan soo wareejinin oo kacbada u soo noqo kuma aanan dhihin waxaan saas u yeelnay illa linaclama in aan muujino oo dadku ogaadaan man yattabi'u ar-rasuul qofkii rasuulka raaci ficlan waana la ogaadayo masaajid madiina ku yaala yaa markii damaata qaanana waa taliil loo bixiyay masjidul qiblatayn ayaa loo bixiyay masjidul qiblatayn waxa loogu bixiyay waxay ahayd يعني صلاة أيها وحاد على ركعتنا إن بيت المقدس لو سجدي ركعتنا يعني مكة لو سجدتي يعني أيضا صلاة لو جيرو أيها دتي وحلا شيء بيت المقدس إن لقى سوريجي أو كعبة لو جيسنايو ركعتنا حاجة يسجدين إسلام مركي أمر كوي قاتين أيضا صلاة دي بكبحين أو عندهم بهرت تن aan sida ku dhameysano markaan ka baxno salaada soo socotay ku xigta ayaan kacbada u jeesan doona mayna dhihin markii la xalay aayad ayaa soo degtay oo baytul maqdis dadka ka wareejisay oo kacbada dadka u wareejisay dadkii markay saa u maqleenba isla ayagoo salaadii ku jira ayay soo wareegteen dadkaas waa dadka yaani iimaanka oo runka yahay oo amarka ilaahay u diyaarsan mar alla markuu u yimaado walow salaad dhexdeedna ha ahaadeene amarka inay sidii ku fulinayaan marka saasaana xigmada loogu talagalay ayay ahaydba tababarkaas in lagu qaato oo dadku ay ku kala baxaan yaa amarka ilaahay si mutlaqa u qaadanaya iyo yaa amarka ilaahay shuruud ay ugu xiran tahay in la kala cadeeyo ayaa la rabaa marka ma aan yeelana illa linaclama man yattabi'u ar-rasuul si aan u ogaano ilaahay mar walba uu ogyahay qabla al-imtixaan ayuu ogaay laakiin waa cilmi dhuhur ayaa la si aan u muujino man yattabi'u ar-rasuul rasuulka mid raaci mimman yanqalibu mid gadoomi ala aqibihi ciribtiisa u gadoomi وإن كانت لكبيرة وإن كانت وحي أهاتي تحويل كاس لكبيرة مدوين أو كعلص إلا على الذين كوي مؤجيه هدى الله إلهي وهنونيه يعني إن بيت المقدس لقصوا وريقو أرني سهلا ماين أهين محايا يهود دعاية حوق لأي فافنايان بين آدم كنا سيه سبب دعايته ويساميان وآد أيو دبان يعني عالم كنا دقالة أو قالوا دقالك أو خطر سنة ودقالك حق دعايتها ليسو استعماله marka yahuudu markay dhacday yaani in la iswareejiyay dacaayadii ugu weyneed oo ay dadka kaga shakisiinayaan diinta islaamka ayay keensadeen marka
يعني أرنتاس إن عليس لا لو موجيو يا وحال أرنتاس فعلا وأرن علوس وضدك وحي لقب صدين أو ضد دين شيئا أي أوش شيئا يعني إنه كل الجنادان إلى قف إلهي وهنوني موجي أرن سهلا معه مرحبا وإن كانت وحي أحاطي وريجينت أو سو وريجي أو كعرض حاجة لو سو وريجي أو بيت المقدس لقى سو وريجي صلاة لو تكناي وحي أحاطي لكبيرة متكوين أو كعلص إلا على الذين كوي موجي هد الله إلهي وهنوني يعني مؤمنين إلهي وهنوني أيوكم عصره محيا لي أيوكم ماشي لو جدي بديار أيوهين شالي بيت المقدس لو جدي وجيستين ما أنت ولا جسوا جدي وكسوا جيستين حنونك إلهي أيا فضيت كاس يدق النجلان تاس إلهي حنونك وقلب جودجري أيا كيناي لكن يهود قلب جوده وقللي وكاس أذوك كر وحاتي هذا ولا وريجي وأنا أرهن صح أهو إلهي أيا سود جي قرآن كواكن ياك بعد عناية وحيلين مايا محمد غير كيسي أيو سكج على يستوي وكعبدي ماشي وكل شيء يوهلكي أيو مسكحدي سيكون حرنتاي هلكا سؤالي برينا وحاول لقفل هاي أنتو كسي جدبو إنه قوم كيس إسكودين أي نقلانه وحي بقى يقصوا الدقيقي بو يسخصوا الرمانة يساي مركو ربا حق كمونة تاجنينه يهود نمدو يرمانين دادك كسي هايستان مركو داد إله هنونية ما كواس لكن دادك إله هنونية مؤمنين تا إسلام مركي بو يسووا ريجين وما كان الله يضيع إيمانكم مركي اللي سووا ريجي مسلمين تا دورية توانكي بلوت ay u sii jeedeen xagga baytul maqdis hadda maadaama ay ka soo wareegeen ayaa waxa iska wareysteen salaadihii aan xagga u sii tukan jirnay ma la aqbalay ma ansaxeen mise meel qiblada aan ahayn ayaan u tukanay markaas waxa li wama kana allah ilaahi ma ahaanin li yudiica inuu dayaco iimaanakum iimaankiina oo aan loola jeeda salaadii aad tukateen xagga aad u tukateen waa salaad ansaxday maxaa yeelay jeesashada aad xagga u jeesan jirteen wax idinku aad iska hindisteen ma inaahayna waa amar ilaahay ayaad yani arintaas aad ku qaadateen allaha salaadan idin faray ayaa xagga u jeesta idin yiri waadna u jeesateen intii marka xagga aad u sii jeedeen salaadii aad ku tukateen way idin ansaxeen ajirkooda ayaa leedihiin ma idin dhahayo meel kala aad u tukateen idin ma dhahayo markii xagga loo sii jeedeen sharci ayay ahayd marka hadda laga soo wareegana waa sharci kale labadaba ilaahay ayaa amray saas daraadeed ama xagga marka aad u tukateen salaadii aad tukateen ha ahaadeen ama kuwa hadda aad tukanaysaan ha ahaadeen mar alla markaad amarka ilaahay sidoo aad u qaadateen idinka hawl kale idinka saaran ma jirto ilaahay wax amalkaas aad sameeyeen idinkama dayacaayo marka wama kana allah ilaahi ma an yudii'a iimaanakum iimaankiina mid dayaci iimaan waxa looga cabiray salaada ahmiyada ay leedahay daraadeed laana qofka duu iimaan leeyahay taariku salaad ma noqonayo لأن الصلاة إيمانك وهكذا والاسكو عبري إيمانكم أي صلاتكم أي لغوضا يعني صلاة دينا إلهي يعني ما ضيع وإذين أنصح عليه الصلاة دي الحق وتكتين أو بيت المقدس إن الله إلهي بالناس ضدك لرؤوف لمرية أيها هذه الرحيم أو نحريستا وحاكينا ضد هولا بدن سوقبتي أو دور يتوان بلود ميل وتكناي إن لي هذا محايد هوشين وحبك مجرى هكذا كل ماتي يعني تاسي نحريس معها قف ضيعمي هوشي سيئتا مرك إلهي أو عادل أو كون كان أبوري inuu arintiin idin ka dayaco salaadiyaal xagga u tugatay wax kama jiraan ka soo qaado ilaahay saas yaani ma ahana waa naxariis badan yahay adoomihiisu hawshi ay qabteen uu qoray wuuna ka abaal marin doonaa maxaa yeelay naxariistiisa ayaa badano saas ayuu ilaahay ra'uuf u yahay in allah ilaahay binaas dadka ra'uufun dhimriye rahiiman oo naxariis ama naxariis badan aad u naxariis badan ayuu ahaaday qadna la taqallubu wajhika fi as-samaa'i falan wallanaka qablatan tardaaha aayadan waxay ku soo degtay nabi sallallahu alayhi wasallam markii uu madiina yimid oo baytul maqdis uu tukanay dhowr iyo 10 bilood 16 ilaa 17 bilood uu tukanay asoo sidaas ay tahay amarka ilaahay qaadanayo xaq u sii jeeda hadana mal walba nabigu wuxuu jeclaa inuu kacbada u soo jeesto meeshna ibraahim oo yaani uu dhisay oo awwal bayt wudu ala naas yaani fadliga badan yaani inuu u soo jeesto qalbigiisa mar walba uu jeclaa hayl waxa keenaya yaani meesha ay ka soo jeedo baytkaas meesha uu ka soo jeedo meesha uu ku yaalo baytul xaraamkii yaani amarka ilaahay waa qaadasho asaga وتان دهنا دول اسكو توبرايا oo amarka ilaahay si anigu aan rabo in hadii la yeelo ma amarkiisa qaadan arinku ma aha hatta si qalbi ahaan adigu jacaylkaaga wax kale ku jiro in hadii lagu dir qaataal raba marka nabi sallallahu alayhi wasallam asoo amarka ilaahay qaatay oo 17 bilood xagga u tukanay ayaa intii xagga u tukanay hatta qalbi ahaan jacayl markii la yiraahdo wuxuu jeclaan lahaa maalmaha kamid ah in dib loo soo celin doono oo kacbada uu soo jeesan doono markaas ilaahay aydan soo dajiyay oo ilaahay uu leeyahay قد نرى تقلب وجهك في السماء قد حقيقة نرى وان أركيني تقلب وجهك قدون كيسة في السماء السماء حق هذا وجهك أدوك قدينيسي معنا قرأت فيرنيسي عركة فيرنيسي وعاد مرء جعلت آيات انت يسودت من الجبرين انتو كوي مادو وكوي هذا وحي اياكو وسود دقي وامر كاسنا والو سيي بيت المقدس كسو جيسو كعبة اسو جيسو سيداس اني قلبك كجرتين وان كور قبنا قد نرى تقلب وجهك في السماء قد حقيقة نرى وان أركيني
تقلب وجهك قدونك في السماء السماء قدومايو أذكر فيرنيس أدو وحي سوغايا فلنولينك كوجيدنا أو كوجيدنا قبلة قبلة ترضاها أترالك طهي يعني النبي جعيلك والغو يالي سيدي أد جعليد oo inaad u soo jeesato kacbada ah hawshii loogu talagalay amar qaadasho ay ahayd amarkii markay dadkii qaateen oo iimaankooda la imtixaamay oo dadkii ay kala bixeen oo qaarna ay waayahay yiraahdeen amarkii Ilaahay meel alla meeshu loo jeedo ayaan ogolnahay qaarna ay sida hawadooda ay jeceshahay oo iska daba taagnaadeen oo amarkii Ilaahay ay diideen xigmadii laga lahaa mar haday dhamaatay oo dadkii ay kala bixeen dib ayaa lagu soo celiyay sidii adigu aad jecleed falan walyanaka qiblatan tardaaha waxaan ku jeedinaa qiblad raali ka tahay oo kacbada inaad u soo jeesato ayaa waxyi kugu soo dagay فولي وجهك جيدي شطر المسجد الحرامي مساجد كحرمة لحقيسة وجهك أسو جيدي مركز صلاة تكنيسو نبي وحلقة ربا ماشي أتقابليسو وجهك سو قابلينيسو إنو النقضو حق مسجد الحرام ككعبة حق إنو أسو جيسو هكذا أيها قبل إذين فولي جيدي وجهك شطر المسجد الحرامي مساجد كحرمة لحقيسة وسو جيدسو يعني مركز صلاة تكنيسو ماشي أتقابليسو حتى وحي كدن بياي ومساجد كحرمة أو مكة المكرمة كيال كعبة حقيقة أيها وسو جيدسانيسا وحيث ما كنتم ميل الله ماشي هاتان هداد مسلمين تهينا قيبت روان النبي والنبي قال الله خطاب وحال النبي وجهك سو جيدي وحان أسو جيدسا حق كعبة مسجد الحرام حق أسو جيدي مؤمنين تأي هذا الله الله وحال وإذن كنا مسلمين هداتهين وحيث ما كنتم ميل الله ماشي هاتان فولوا وجوهكم وجيدي نجيدية شطره مساجد حق أسو جيدية مسلمين تنقبل الله وهالكاس عالم كم ميل كستوي كجوغان حقي يجرتان وي معناها مكة المكرمة كعبدي وحقيه هذا إنك الصومالي هذا نهاي حاجة وحين نجي حكتا وقوية إيه نجي حكتا مركا حاجة وقوية يا لوجي السنة يا هاي مسجد الحرام كي كعبدي أي حاجة نجي حكتا وما ذكر له حاجة أي كعبده كحيسو حاجة كونفورت أي كحيسو أو كونفورت سو تكناية كل حاجة حاجة برجة أنت يجوا دقيني يعني برجة حاجة سو تكناية أو قلبيت كحية كعبده يعني قالوا البقى مسلمين تكمل عن ماشى أي جوته ماشى أي كجرته كعبده حاجة أي أسي جيتنايا وحيث ما كنتم مال الله ماشى هاتان أدون كات كجوتان فولوا جدي وجوهكم وجهنا شطره كعبده حاجة ما كان صلاة كنيسان حاجة قبلة سو قابل أو كعبده حاجة هذا وجهنا أسو جديه وإن الذين كوي أوتوا الكتاب كتاب كالسيي ويهودي النصارى دي لا يعلمون ويؤجيهن أنه أسجى أو تحويل يعني القبلة سوريجين تقبلة بيت المقدس لو سوريجي كعبة لو سوريجي كون أهل الكتاب كوي يؤجيهن أنه أسجى أو وريجين تا الحق حق إنه يهون من رب وده حق سكين يعني كتب توضيق هلايا يعني نبي إنه حاجة تكون دونه ويؤجيهن دعايتنا marka da ay wadaan ilayhin maxamed meeshii uu ku dhashay ayuu u xiisooday oo berina qoomkiisa ayuu ku beeri doona ilayhin waa dacaayadan oo diintan ay ku horjoogsanayaan ma ogiye nimanku haday xaq doon yihiin kutubta ay haystaan ayaa loogu sheegay ahdaataas dhici doonta iyo arinku sidoo yahay dhan waa loo sheegay wayna og yihiin wayna ladina kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyay la ya'lamuuna way og yihiin annahu alhaq haq inuu yahay annahu asaga oo taxwiilka wareejinta oo يعني لسو وريغي او بيت المقدس كسو وريغي او كعبه لو سو وريغي وريجنتاس ايدا الحق انه يا من رب والحق سكاعدي وما الله اله ما ان بغافل مدهل مانسن عما يعملون وحا اي سمينayaan dacaayadan ay faafinayaan iyo isurtaaga diinta iyo dadka caamada masaakiinta aan waxba kala garanaynin ay dhibayaan oo ileeyihiin xaq lagu ma taagne ay tashwiishka ku furayaan ilaahay arintaas uu og yahay ficlan dad ay tashwiishiyeen way jiraan dad oo markaas diinta soo galay oo arinta ay ku cusub tahay oo yahuuda dacaayadooda u hoggaansamay oo diinta isaga baxay ayaa jira oo qalbigooda daciif u ahaa oo yahuuda markay dacaayad xoog la fureen oo dhahan maxamed kulba dhinac ayuu isaga jeejeesanaya ee waa hawadiisa shalay halkan u jeestay berina xaq uu sii jeesan berina uu ka sii tagi doona qaara waxay dhahan waxan diinba ma malaha waa waxun ruux uu iska wato marka ilaahay wuxuu leeyahay kuwaas dacaayada saa u faafinayo isla markaasna og in arintani xaq ay tahay ilaahay waxa ay sameynayaan ma hilmaansano wallahu bighafilin amma ya'malun ولين أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك أيضا حكاها ليس يعني لمن كان يهود حقدون معه لكن أيضا أفكوا حيكليهن حديه أو النبي كان حق تاغين يهي نبي يهوري بيت المقدس أي أوتوا كان جريني محوق جيستي حديه أو نصور راعي لها أو قبلة أو كسقنا لها أو بيت المقدس أوسي جيدي لها ولجيبة وانصور رمين لهن أو وانصور راعي لهن waxa marka hadda anaga aan uga joogsanay ee aan u raacayni waxay tahay nin la isku haleyn kara ma aho maanta Baytul Maqdis ayuu ka jeestay nabiyadii ka horeysay Baytul Maqdis ay u soo tukan jireen saas daraad waxa uu wada xaq ma ah
marka si arintaas daayada xoog gal ay faafiyeen oo dadka qaar laga yaabo in ay u dhagan nuglaadaan loo baabi'iyo yaa waxa laga hadlayaa dabeecadooda iyo qalbigooda gudaha waxa ku jira iyo waxa arintan ay u faafinayaan inayna xaq doon ka ahayn oo nabiga waliga ayna raaceen nimanku hawadooda inay diin u tahay markaas waxa la wala in atayta alladina hadii aad ula timaadid kuwii ootul kitaabka la siiyay bikulli ayatin mu'jiza walba hadaad u keento xaq walba oo cadeynaya inaad xaq ku taagantahay hadaad u keento ma tabi'u maraacayan qiblada maraacayan marka nabiga nimanku xaq doon ma ahe nimanku waa xaasidnimo iyo maxaa rasuulka anagana looga dhigi waayay oo risaalada ilaahay ku siiyay ku diidan yihiin waxba aysan kugu beer la xawsanin hadii aad ku sii sugnaan lahayd meesha aad u sii jeesatay ee baytul maqdis waan soo soconay oo waan ku raaci lahayn yeena kugu beer la xawsanin hadaad wax walba u sheegto oo si kasta sida ayagu markaas ay sheegeen baytul maqdis naftiisa aad u sii jeedo kaama yeelaan maxay ilaa baytul maqdis 17 bilood ayaa loo sii jeeday maxay u soo islaamiyeen 17 kaas bilood hadda markii la xawilay oo la yiri xagan ka soo wareega xagan u soo wareega marka ay kicinayaan dadka ay leeyihiin ma u jeedaan meesha inaysan diin oolin maxay xaga ugu jeestay ma wallahu an qiblatihim allati kanu alayha ay leeyihiin arrinku marka diin daba socosho ma aha waa dad juhuud oo marmarsiyo wax ay ka dhigtaan bay raadinayaan maahina xaq doon ma aha waxba isku dhibin waay marka wax walba hadaad u sheegto ka yeeli maayaan wala in atayta alladina kuwi hadaad ula timaado wala in wallahi ayaan ku dhaartay atayta hadaad ula timaadid alladina kuwi uutul kitaabka la siiyay bi kulli ayatin ayad walba oo warka aad sheegayso xaqnimadkiisa cadeynaysa hadaad ula timaadid ma tabi'u qibladaada ma raacayaan wama anta aduguna matid bitaabicin mitraa'i qibladooda ma raacaysid maxay dadku yaani way kala duwan yihiin saas daraaddeed waa in la kala yaani meesha loo jihaysan iyo manhajka la qaadani dadku waa inay ogaadaan inay dadku kala duwan yihiin oo hadda mesela gaar waxaan kala duwan waxa kamid ah hab nololeedka ayaga ay adduunka rabaan inay ugu noolaadaan iyo hab nololeedka inaga islaamku ina faraayay adduunka inaan ugu noolaana ayaa kala duwan saas daraadeed ma ka yeelayaan sida adigu islaamkaaga uu yahay inaad hab nololeedkaaga ka dhigato kaama yeelayaan waxay rabaan sida ayagana hab nololeedkooda u ah inaad ula dhaqantid oo sidaas hadaad saas yeeli weydana raalina kaama noqonayaan wayna ku dhibayaan marka laakiin waxa rabaa dadka muuminiinta ah quraanka intay ku kalsoonaadaan inay ogaadaan yaani dadku inay kala duwan yihiin oo nin asaga hawshiisa haysto oo sida asaga uu rabo in loo noolaado kaala ila noolow isku diinna aydan ahayn haduu adiga marka ka dhaadhacsado daciif ayaad noqonaysaa maxay ruuxa markay lagu dayanayo waa ruux aad aaminsan tahay inuu ka fiican yahay hadda marka ma filayo qof mu'min inuu hadda aaminsan yahay gaala aniga iga fiican oo ilaahay aan u sujuudaynin oo ilaahay aan rumaysnayn wax ma fiicno marka saas daraadeed yaani in la kala duwan yahay waa in la ogaado yaani qibladaada iyo wajhadaada iyo shariicadaada iyo diintaada iyo saad ilaahay u caabudaysid quraanka ka qaadan maahine nimankaas gaalada oo yahuud iyo nasaara laga ma qaadanay sababtu maxay tahay ayagu marna ma yeelayaan habkan quraanku uu sheegay in loo noolaado habkooda ayay rabaan hadii marka ay ogol yihiin la yiraahdo war anaga habkeenan u noolaanayna idinkan habkiin u noolaanayna dhaafa kaama yeelayaan illa anaga taanada aad ka yeeshaan idin kama yeelayno marka qofkii dabaal ah kaas la jiita asaga wali wama anta bitabi'in qiblatahum adigu nabiyo qibladooda ma raacaysid qiblada marka waa midan salaada loo sii jeedo waxa kale oo qibla noqon kara yaani tawajjuha qofka yaani maskaxdiisa ku jira iyo sida uu u fikiraayo iyo sida uu u noolaanayo iyo sida uu dhacan dhaqaalihiisa u yahay iyo sida ummadiisa yaani inuu ka horreeyo ay tahay yaani qibladu waa meel loo jeesto hadii marka salaadana meel loo jeesto oo kacbadii loo jeesto oo quraanka la akhriyo hab maamulka adduunyada iyo hab dhaqanka iyo maxaydan dhaqaalaha iyo wixii ku saabsanna meel kale loola jihaystay waa lagu lugo'aya way macna marka waxa la rabaa diintan waa diin wada dhameystiran sida salaadaba ay arrimaheeda ay khaas u yihiin oo mu'miniinta ay khaas u yihiin oo la soo faragelin karin ayaa hab dhaqanka mu'miniintana uu khaas u yahay oo hab nololeedkeeda la rabaa in loo daayo marka nabi waxa leeyahay ma anta bitaabicin qiblatahum wama ba'dhum qaarkood ma ahaanin bitaabicin qiblata ba'din qaarka kale qibladooda ma raaceen hatta yahuudiya nasaarada oo gaala islee ayaga dhexdooda cadaawada ka jirtay isku dhinac uma socdaan way macna laakiin hal mar bay midoobayaan markii yaani ay mu'miniinta la dagaalayaan isku mid ayay noqonayaan laakiin markii ayaga la isu daayo dhexdooda cadaawada ka jirta aad ay u badan tahay marka uma ba'dhum qaarkood ma ahaanin bitaabicin qiblata ba'din kuwa raaci qiblada qaarka kale walin tabacta hadaad raacdo ahwaahum hawadooda hadaad raacdo من بعد ما جاءك مركو كو يمد كدب من العلم علم مركو كو يمد oo habnoolaadka quraanka oo saan u tilmaamay oo diintan ku dhaqan leeyahay kadib hadaad nimankaas hawadooda aad raacdo oo sida ayaga ay rabaan aad ka yeeshay innaka adigu idan goortaas la min zaalimiinta ayaad ka mid noqonaysaa marka nabiga ayaa asaas leeyahay nabigu marka suurtagal ma amana raacay hawadooda khitaabka asaga ku jeedo laakiin ummadiisa ayaa loola jeedaa hadaad mu'miniinay aad hawada gaalada raacdaan oo sida ayagu ay doonayaan aad u yeeshaan ظالمين أياد نقنيسان درسي إن ما أنت شكوك يهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.